bismillaahi raxmaani raxiim daawadayaal kusoo dhowaada youtube-ka wararka soomaalida qodobada ugu waaweyn aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah xukuumadda soomaaliya ayaa la qorsheynayaa in isku shaandheyn lagu sameeyo islamarkaana boosaska wasiirada qaar oo bannaan la buuxiyo wasiirada qaar ayaa xiriirkooda la isku bedeli doonaa halka qaar ka mid a golaha xukuumadda ay xiriirkooda waayi doonaan ila xogogaal oo ku dhow xafiiska ra-iisul wasaare kheyre ayaa inoo sheegay in xasan cali kheyre uu hadda qorsheynayo inuu isku shaandheyn ku sameeyo golihiisa wasiirada si uu u fuliyo heshiisyo siyaasadeed iyo mid isbedel amni oo ka hirgala magaalada muqdisho. ra-iisul wasaaraha soomaaliya wafdi uu hogaaminayo ayaa shalay dib ugu soo laabtay magaalada muqdisho kadib markii safar maalmo qaatay uu ku joogay magaalada kismaayo halkaas oo uu kula soo kulmay madaxda jubbaland iyo bulshada qeybaheeda kala duwan. mudane xasan cali kheyre iyo madaxda jubbaland oo kismaayo ku kulmay ayaa ka wada hadlay dhowr arrimood oo ay ka mid ahaayeen doorashada jubbaland ka dhaceysa iyo sidii maamulka jubbaland oo xubno ugu yeelan lahaa dowladda federaalka islamarkaana golaha wasiirada soomaaliya isku shaandheyn lagu sameyn lahaa. ila xog ogaala ah kana qaybgalay shirkaasi waxay inoo sheegeen in wadahadalada labada dhinac ay inta badan isku fahmeen qodobadii ay ka wada hadleen waxaana jira isku shaandheyn lagu sameyn doono golaha wasiirada soomaaliya islamarkaana maamulka jubbaland oo xubno ku yeelan doono. sidoo kale qodobada ay ka wada hadleen ayaa waxaa ka mid ah in dowladda soomaaliya ay faragelin ku sameyn doorashada jubbaland oo la filaya inay dhacdo bisha agost ee sanadkan 2019 si lamid ah doorashadii ka dhacday magaalada baydhabo. sidoo kale wararka aanu helayno ayaa sheegaya in isbedel lagu sameynayo taliyayaasha ciidamada iyo maamulka gobolka banaadir oo lagu eedeeyey inay ku fashilmeen sugidda amniga caasimada soomaaliya ee muqdisho.